dowladaha wasaaradda arrimaha dibadda ahna kusimaha wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Professor Maxamed Mixile Boqorre ayaa qaabilay xubnaha ka socda dowladda Turkiga isla markaana imaanshihoogu la xidhiidhay sidii loo xoojin lahaa cilaaqaadka u dhaxeeya Soomaaliland iyo dalka Turkiga taasoo ujeedadoodu ugu weyn ahayd sidii ay kulamo ula yeelan lahaayeen mas'uuliyiinta dowladda gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda iyo waxbarashada dowladaha wasaaradda arrimaha dibadda Maxamed Mixile Boqorre ayaa faafahinaya ujeedada iyo waxyaabaha ay ka wada hadleen xubnaha ka socda dowladda Turkiga. بسم الله الرحمن الرحيم ساك halkan waxa nagu soo siyaartay safiirka Turkiga halkan u fadhiya ma consularka wakiilka Turkiga u fadhiya iyo wafdi kale oo wado waxaan ka wada hadlaynay arrimaha xiriirka labada dal Soomaaliland iyo Turkiga oo rabnay inaan xoojino gaar ahaan xagga waxbarashada iyo garanaysa waxyaabo badan oo caafimaadka inay naga caawiyaan marka hadii la hay'ad si fiican baan isku afkarno wada hadalay adag baan dhiganay oo inagu soo noqon doonaan iyaga waqti kale hadii Ilaahay yiraahdo oo wixii waxbarashada iyo caafimaadka wasaaradda caafimaadka hangeyn doonaa annagu haddana wasaaradda arrimaha dibadda ma horta annaga sii jircina xidhiidhada han dibadda la sameeyno ama wixii macaawinay wadannada la sameeyno markaan sii jircina wasaaradda koonsalka kuwa kolka dambe u geynaa maanta iska warbixin guud bay ahayd laakiin waxaan rabnaa marka dambe yimaadin bisha Abriil baan ballanay in waftiga wixii qayb waxbarashada qayb caafimaad ka socotay qayb horumarinta ka socotay kale xagga badda iyo qayb magacaga xanaanada xoolaha wixii oo dhan bayna ka wada hadlaan doonayna hadii Ilaahay yiraahdo marka hadii Ilaahay yiraahdo Abriil baan u dhignay shirka weyn oo iyaguna wafti weyn inay ku yimaadeen annaguna marka macluumaad madaxtooyada iyo hawsha wada gallo ayaan doonaynaa hadii Ilaahay yiraahdo arrimaha noocaas ah si fiican oo nagu dhamaan